بعد السلام horta waa lagu gaado ma ogeyn in la yeeri doono alisti waxa ma sii diyaarsan lahaay waxaan u mahadcelinayaa taliyaha asluubta iyo dhammaan asluubta ciidanka asluubta qaybahooda kala duwan fanaaniinta meeshan aan caawa joogno oo ay ku dhiseen muddo ka yar 24 hours I think ma malayn ay ku dhiseen aadka u quruxda badan waxaan uga mahadcelinaynaa isxilqaan ku dhiseen sidoo kale isxilqaan oo barnaamijka isxilqaan oo laga rumeeyay oo maanta si cad u joogno meelihii isxilqaan lagu dhisay ilaahay ka soo waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay qaybahooda kala duwan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasiiradda oo iyaduna maxanahay maanta dadkii isxilqaan ku dhisay goobaha xalfadan u soo qaamqaamisay iyo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga oo ku abaalmarinaysa way ku mahadsan yihiin waxaan rajayn doonaa dalkeena in aynaga isku talshano waad aragtaan isxilqaan intaan bid'aadan kala sugayno ama dad shisheeye in aynagu kaga dhabeyn karno inaan wax dhisan karno qabsan karno dhalinyarada Soomaaliyeedna ay qaban karaan wax iyagoo aan injineero kale loo raadin iyagu ay wax walba ay hormarsan karaan dhalinyarada waxaan leeyahay waa in ay isku duubnaataan dalkeena aan seen horumar iyo development u gaarsiin lahayn aan dalalka kale ula tartamahay inaan gaarsino maadaama ay nahay majority inaga waa inaynan sugin odayaasheeni waa retire noqdeen iyo islaamihii marka waa in aynaga isku tashanaa dalkeena san horumarin lahayn aan adagoo shisheeyana uga badbaadin lahayn sidoo kale dhalinyarada maxaa la inaga jahawaabiyo aan ugu sameyn lahayn wacyigelin oo aan la kulmihayn wasaaradana waxaan ka codsanaynaa markan maaha mar horena waa ka codsanay inay sameeyso iska dhaxgalka dhalinyarada siyaasiyiinta iyo dhalinyarada maxay magaalada jooga sidii aan qorshe u sameeysan lahayn waxa u malayaa doorashooyin soo socda majority-na dhalinyaro inaga ah marka waa hadii ay iska sugno oo ay odayaasha iyo dadka sugno ayna ka qayb qaadan dastuurka dhameystirka dastuurka gudiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka wixii la inoogu taliyeen qaadanayna marka waa inaan tashanaa oo aan sameynaa sidii aan uga hortagayn waxyaalaha dhacaya oo aan laynoo oran waa madaxdii biri un baatiin laynagu oran mar walba isku duubnaano wasaaradana waxaan rajeen doonaa inay sameyn doonto isdhexgalka dhalinyarada siyaasiyiinta iyo dhalinyarada kale ay ka shaqeyn doonto haddii rabbi idmo annaguna garab ayaan ku siiraynaa waxaan kaga faa'iidaysanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u malayaa taaladan waxaa lagu xusaa 13 dhalinyaro ah 13 ka dhalinyaro iyagoo aan haysan wax badan inagu hadda aan haysano aqoon badan ayna haysan technology badan ayna haysan dhaqaale badan ay dalkeena gumaysiga ka xoreeyeen maxay noo diiday in aynagu tashano oo aan sameeyno wax badan dalkeena oo qani ah oo mar walba wadamada qaniga lagu taliyo haddana aan ka mid nahay wadamada faqiirka oo kale laynagu maxaa dhahayo marka in isku tashano waayaan dhalinyarada oo aan sameeysanaa balbeej cusub kuwa inaga jira maxaa dhahay meelaha xun ay uga soo saareen waa ku mahadsantihiin annaga xaaladda markaan qiimeynay gabdhihii dhalinyaradii waxaad moodaa odayaashii inay khatar ku jiraan mid 2020 noo dhaarato mid odayaasha retire-ka na tiro nuuxo waad maqlaysaa beri laga bilaabo waxaan murashax u ahay gudoomiyaha guddi hoosaadka odayaasha feestooyinkana waa la isku qabsan doonaa maalintii hooyooyinka waa jirtaa maalintii dhalinyarada waa jirtaa maalintii odayaasha in meel la saaro mooshin badan waa lagu kala bixi doonaa waxaa miiska noo saaran mooshin oo haweenka ay wadaan oo la yiraahdo gudniinka fircooniga odayaasha kolay mowqif ay ka qaadan doonaan sababtoo ah 20 jirkeeni meeshuu jirin mooshinkan ayaga ay sheegay waxa hadda loogu soo beegay oo baarlamaanka dad 80 jir ah ay ku joogaan in hadda naloo keeno gudniin fircooni mooshinkiisa far badan la taagi doonaa ayadana waa inuu baarlamaanka odayaasha islaamku ma hari doonaan waana la isla wada fadhiyaa waxa hawshan qabanoo haya wada qurxoon waa jannadii saaxiibkeena Bashiir asluubta waa soo qurxiyay haddana wuxuu dhisoo hayaa oo halkaan amaanta uu ku hayaa
waxaan nuuraya uu ku helay asagoo sareeyo guud ritaayirnimo dada u soo wada wasaaradda gaashaandhigaan booqday war beerahan quruxda badan beeraan aqaanay aniga geel haddii tahay ma faragashtaene yaa saan u nuuriyey waxaa la yidhi taliya indha qarshe haye iskoola buliisiyaan tagay war meeshaan saan yaa u habeeyey generaal bashiir americo haddana ritaayir asa wadaan miya kabacdi waa la idin nuurihaa idinka waa kusoo guuraysiin le saddex suulla miya dadkan guri luu dhisaa waa la degaa dadka la degaayo adeerayaal dhallinyar iimaankaa la idin geliya haweenkana sidoo kale bahashu waxay ku macdahay aan isla wada wadano bahasha ninkii dhinta allah u naxariisto haddii dhallinyar yahay haddii oday yahay hadday gabar tahay hadduu nin yahay laakiin falkan iyo sidaan maalin walba dhallinyarada haddaan nahay haweenka haddaan nahay haddaan saa nahay sidaan ma lagu heshiin doono xaalkan wax laga bedelo dhallinyaro odayaasha nin caraba wuxuu yidhi haada aljadiidu abuhu qadiimun waxaan cuseeb aad arkaysin qadiina dhalay falaa talidu lxaya arnaba abeesana bakaylama dhasho nin waliba dadkii hadda dhallinyaradan lixdameeyadii ka hor hadda suuqa ku aragtaan ritaari way madhaysid ya cabdiqaadir sheekh saqaawdiin olku kutuba haddaa aragtaan adeera waxba kuma lihidi waddanka naga tag ritaayar baa tahay annaga hadda maaragtay eetumaane marka adduunkan dhan iyo xorriyadda laguu keenay waddanka laguu dhisay dowlad laguu keenay calan laguu keenay wax dhigasho le aad ka bilowday mushaar le aad ka bilowday meel cidla maa rabtaa inaad ka dhexashid soo aad noogaysaa kaaba waa soo noogaysidii ikoo kale laakiin dhallinyaradana waa idin jecelnahay naga dhaafa idinkana maaragtay xusulaynta odayaasha argeel laba jir soo wada mar xamar markaan soo labisina wallaahi baabuurta waa kala leexan jireen idinka hadda waxaaba ku soo aadeen xaalkiin idinkoo tacbaan ah dhallinyaro dhinac waa ka fiicantiin dhinacna dhallinyaro naga dhiboo hayso al-shabaab dhallinyaro ma hayno obana hadda weelkaniyaana sheegsheegin ceebtiina duqooshiinka ma la dhoohay maaragtay ayaga weerar soo qaaday intana dhallinyaro difaaca intana dhallinyaro weerar ah idinka naftarkiina tintiin dhinacoo u xiiranto oo maaragtay ama dhallinyaradii isku toosiya idinka isa soo habeeya dhallinyaro soomaaliyeed sidii kuwaan oo kale soo noqda muraadkiina waa helaysin marka si kastaba cawada in loo hadlo oo saraaxa la noqdo ayaa caawa khudbadeeda waxay ku saabsan tahay in runta la isu sheego isxilqaankana wuxuu ku jiraa in nin walba tabartiisa uu isxilqaamo odayna male gabarna male ninna male waayelna male aad mahadsantihiin marka sidaa aan leenahay maaha dhallinyaradu inaan necabnahay dhallinyaradu khibradda iyo waayo aragnimada odayaasha inay ka qayb qaataan baa loo baahan yahay dhallinyaradu adduunka waxaa loogu talagalay waa professionistayaal waa niman aqoontooda waxbarashadooda dhakhaatiir looyarnimo injineernimo wax kasta oo dalka iyo dadka horumar inay qaybtooda u qaataan sidii loogu talagalay ayay ujeedkeenna iyo baraarujinteena ay tahay maaha dhallinyarada dadkao dhan inay wada siyaasiyiin noqdaan dowlad wada karaan ee adduunyadaba ma joogtaa la yidhi dadkii oo dhan hadda waxay la noqday soomaaliya wada politician nin walba siyaasi waaye war siyaasaddan waddankan ayadaa rogtay ayadaa dudumisay ayadaa baabi'isay ayadaa ummaddan kala qaybisay ayadaa kala socday ayadaa kala saartay hadday dhammaanteen aan wada siyaasiyiin wada noqonno waddanka laguma dhisaayo siyaasad aqoon baa dhisayso iyo dadnimo injineerkii halkaan soo istaagay ee ciidanka asluubta soomaaliyeed mahadiha ka gaadhay uu ka tirsanaa he was not politician laakiin he was technician magartay nin aqoon-yahan oo technocrat ah oo aqoon muhandis ah ayuu wax ku dhisay laakiin haddii kulligeen aan nimaado aan wada khudbayno murashaxiin noqono axsaab siyaasadeed wada furanno waddanka yaa dhisay way marka anta amiir wa ana amiir
ومن با يسوق الحمار ومرك فرق الاسكو دغنان هي نين المدحتين موربا لما هور ليليا وير نكير حوين هيدو ايلين هيدو ما كسر يا هادو نين بعد هور ربا وير وايدين كذا لو توراي يا سياسه حلقه هو يرستو يا لو بدنانين دلينيرو هميغينا هنقدو سي ودنك اقون يددنمو waxa lagu hormaray adinka aad u yeelataan laakiin nin walba haduu wada gudoomiye wada madaxweyne wada wasiir wada xildhibaan la wada raadinayo